mustaqbalka maxay noqon waa noolaha u khatida ee ku talagala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mustaqbalka xaqiiqadiisa inuu isaguuna og yahay قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أوغا يردل وحشوغا غيب كما أوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى حقيقة هن إلهي ينبوغ لكن بني آدم قوة الصادالية isagoo saadaashiisa ku salaynaya tagtadii hore ama taariikhdii hore iyo sidii wax ahaan jireen isagoo ku salaynaya hadda duruufta taagani sida ay tahay ayuu markaa ka saadaaliyaa mustaqbalkuna siduu u ekaan doono dadka wax saadaaliya markaa dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu u muuqdo ilaa xaddin maa sawiran kara sida wax noqon karaan dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca markaa ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay oo mashaakilkaa markaa haystiya waxa unbaa intuu ka bato ayuunbu is idhaahdaa dunidu waxba isbedeli maayaan sawta halkan la gaadhay halkan la gaadho nooc min alyaas ayaa ku dhaca mustaqbalkaasi eegistiisa muslimiintu aqoon-yahankooda waa baadhayaan wax badan baanay eegayaan oo iftiiminayaan cagsigeedana gaaladuna waa baadhayaan buxuuth cilmiya iyo daraasaad akademiya cilmi baadhisyo dhab ah khubaro dhab ah oo maal iyo maskaxba ay gelinayaan bay ku baadhaan oo eegaan mustaqbalka muslimku suu noqonaya waxaan odhan karnaa aqoon-yahano badan oo ay leeyihiin waxay rumaysanayaan laa maxaala inuu islaamku soo noqonayo sababo badan daraaddood laakiin dee laysma dhiiba bay rumaysan yihiin ma la dibdhigi karaa ma 20 sano ku soo noqon ma 50 ma 100 ma 200 haddaynu 200 gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan marka iyagu baxhiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo meelaha xooggaagu uu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro saa awgeed cidda cadowga ahi waxay isku dayaysaa pointiska ama nuqdadaha dacfigaana inay buunbuuniso xoojiso ballaadhiso oo tiro badiso meelahaaga quwadana sidii ay u xadidi lahayd ee u yarayn lahayd inay tijaabiso muslimka waxaa la arkayaa bari iyo galbeedtoona ma rabaan reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhiyo horaa ka soo dhexayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladayn karaan bariga soo socdaana kama roona oo China iyo gruubkiisu kuwanaaba ahlu kitaab labada ah kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo laakiin ka mabda ahaan way ka fog yihiin caalam alislaami dadka xukumaana labadaaba inay ka sii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad jab badan baa dadka qaar ku abuurma
laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool. That means Soomaali maanta haddaynu eegno waxaa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yartay. That means waa xoog soo socda. masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko. macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhallinyaro ah. Soomaaliya qurana maahe waa caalamulislaam oo dhan baa noocaasiya. cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gebgaboobay iyo dad gebgaboobay iyo maskax gabowday. da'yartoodu da'weyntaa ka badan. inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada. that's why in badan qaxoonti u qaataan. qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay, waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan daayirta shaqada soo gelaysa. idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamulislaami waa dhallinyaro, waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda. haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha. cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta. waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukuntaa xukunta. 5-6 kanaalee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa. Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuunbaan gacanta muslimka ku jirin. ama inta kale waa Bab el-Mandab, waa kanaal Suways, waa Jabal al-Tariq, waa Basfar ama marma labada uu leeyahay Turkigu, waa Hormuz kan Iiraanta iyo Cumaan iyo intan u dhaxaysa. waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira. waa wasad الدنيا. Maraykan intaasuu xoog ku joogaa si uu u maamuli kariyo Ingiriis. Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sannadood. khilaafadii Cuthmaanigii markii la ridayay heshiisyadii lala galay waxa ka mid ahaa 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo. 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sannadood. 1923 ayuu ahaa heshiisku. 100 sannadood waa 23 markay gaadho ayuu dhammaanaya. wixii ka dambeeya gacanta Turkiga ku wareegaya.